صعب صعب صعب. قصتي ما كنتي تبدا سيرحدي ابن هذا الكتاب ماذا الكتاب العسكرية مريم داوس. قصتي ما كنتي تبدا سيرحدي ابن هذا الكتاب ماذا الكتاب العسكرية مكيان كتاوتو فرح يراد بوسي ودي شيء عبالي إسلقالي تعلقا. السلام عليكم كسو دوادا channelka Somali Home mise kusoo dhawow channelka Somali Home hadday tahay markii kugu horeysay fadlan subscribe saar si mar walba oo la socoto fiidiyoyaasheena. Marish Beauty waa la socoteen maalimahan dhan in ay dalka ka baxday ayna u wareegtay Canada. Muuqaalkan waxaan rabay inaan kaga hadlo waxa waayay ma rabo inaan sii galgalo safarkeedii waa la socotiin. Waxaan rabay in aan ka hadlo muhiimadda ay leedahay qofka markuu caan yahay, markay bulshada ku jirto, markaa bulshada caan ka tahay. Faa'iido badan ayay leedahay. Afrika joog, Yurub joog, Asia joog, qaaradda joog, meesha joogtaba faa'iidooyin badan ayay leedahay. Hadda maanta qof normal ah oo la yaqaanin hadduu ka duulo Afrika meel waddanka hata haato, haddaad magaalooyinka aado, nolosha waxyaal imtixaanaad badan ayaa la kulmaysaa. Laakiin qofka markuu caan yahay waxyaalo badan ayuu faa'iidayaa. Hadda way tagtay kumanaankan qof ayaa already sugaysay xafladay samaysato waa aragteen. Xaflad dad badan ayaa soo dhaweeyay. Laga yaabaa hataa xafladan in ay qof walbo lacag la kor saaray iyo shaqadeediiba hor ka sii bilaabatay maasha Allah. Dadka markay caan yihiin waxyaalo badan ayaa ugu soo kordhama. Hadda xafladan waa aragteen sidii loo soo dhaweeyay, make-up-ka quruxda loo mariyay, dress-ka sidii loogu soo labisay. Yacni Marish waxyaalo badan ayay magaceeda fanskeeda iyo dadka follow gareeyaanba ayay kaga faa'iiday. Hadda laga yaabaa waxay maalmo yarna luqadaha laga dhisa ee shaqadeedana iska bilaabato. Wax badan ayay ka faa'iideysaa, cilmi ayay galaysaa. Dad badan oo Soomaaliya joogaan oo ayada yaqaana ayaa shaqo siinayaan oo garab siinayaan. Yacni faa'iidada ay leedahay caannimada waxaa waayay dhar ayaad soo gadaysaa mise dhar ayaa ku xayeysiinaysaa, kumanaanan qof ayaa ka gadanaysaa. Waddankii waa ku cusub tahay already lacag ayaa hagaajinaysaa. Dad badan ayaa kugu xiran. Ganacsi ayaa sii furanaysaa, dhar, kareemo la mariyo. Inta u badanna anaga gabdhaheena Soomaaliyeed horumar markay sameynayaan, markay shaqaysanayaan, ee caan noqonayaan, dad badan ayaa niyada ka jabiya. Commentiga gabdhaha mostly waxaa ku arkaysaa 90% waa cay. Way yartahay wax qof ku dhaha keep going. Raggana waa la caawiyaa, garab waa la siinaa, waa la support gareynaa, hadal ku dhaho waa la sii wadaa. Ma ogaan gabdhahan in waxan dhan uu noloshooda ku bedelama. Waxaan arkayay
dad ka hadlayaan sida loogu labisay, dharaaska soo xiratay Marish Beauty, oona dhahayeen markay xagga tagtay oo already way isbedeshay oo goormee keentay isla markiiba in ay isbedesho ee dhar yar xirato. Dad badan way isbedelaan sidaa ku yaqaantay markay inta joogeen say u labisan jireen ee xijaabkoodii iyo dresskoodii ay wateen xagga markay tagaan. Inta badan anaga waxaan qaadaa freedom wax la dhahayo, sidii anagoo marka inta joognay freedom-na haysanin. Iska dhaafba qof caan ah oo laga rabo in oo dhar qof dhan uu soo diyaariyay dharkaas oo la dhahayo xiro, yacni qof laga dambeeyo oo wuxuu dhaqaajiyaba. Although anaga Soomaalideena saas uma reer magaalnimada wali maana sameynin, laakiin Marish Beauty dharkan yaa u soo labisay. Si walbay maradan u qurux badan tahay marka inta joogno sida u labisanaynay xagga markaa joogno maxaa bedelmaa, maxaa dadka ay u jecel yihiin in xibnahooda meel ka mid ah ay tusiyaan. Ma dadka xagga jecel qofka inuusan u labisto. Sababta Marish Beauty markay inta ka tagtay hadda xagga 2 maalin ay joogtaa, hata 3 maalin uma dhaafin already dharkii xagga ayay bilowday. Ma dadka xagga joogaa ayaa jecel in saan lagu labisto. Mida kaleeto hadda Marish Beauty yaa waaye qofkay nolosha la qaybsan doonto, yaa waaye qofka qurux ku dhigle bedeli doono. Adi waxaad u malaynaysaa gabadhaas yaa geeyay si walbay caan tahay oo magac leedahay, yaa waaye qofkii qarasheeyay waxaan dhan ka dambeeyo. Dad badan ayaa ka shakisan in qofka cusuban nin ay mustaqbal la yeelan rabto, nin ay guursan rabto inuu waxaan dhan ka dambeeyay uuna qurux ku dhiglay la ogaa. Dadkan asxaab waaye, saaxiibo waaye, laakiin social media waxay ku dhigi jireen dad lamaane ah. Hadda Marish Beauty safarkan degdega ah oo qof walba la yaab la noqday, qof walba ka yaabiyay. Hal maalin ay soo duubto ani barigaan baxayaa markuu waxyaalihii dhan u soo dhamaaday cajiibka ah. Yaa ka dambeeyay, yaa qorsheynaya, yaa lacagtan dhan siiyay, yaa waxa support gareynaya safarkeeda from Kenya to Canada. Yaa u malaynaysaa ma qurux ku dhigla mise waa nin kaleeto.